هلا السلام عليكم أصحابتي channelkayga ku xiran asxaabtayda saytiin say ku barideen say ku orgashan asxaabta idin salaamaya salaam qaali ah idin soo marnaa meel kasta dunida kaga nooshihiin ii soo dhawaada kaamil waxa iska durjiye asxaabtayda maanta waxaan arkay TikTok video waa idin taariya waxaan arkay Xuseen Uji oo u ololeynay Xasan Cali Khayre iyo also waxaan arkay Xasan Cali Khayre iyo groupkiisa xalay xabad lagu furay magaalada Muqdisho alla wacan dadku ku furay iyo la wacan iyaga isku fureen you never know adduunka waxa ka jiro laakiin fikrada igu soo dhacdaniyo waa fikray waxaan dhahay wiilkan Xasan Cali Khayre hadda ka horan xabada lagu furay haddana xabada lagu furay maxalla markuu uu raan gareynay this is the second time 5 years ago 6 years ago xabada lagu furay haddana xabada lagu furay coincidence miya wiilkan sas xabada la iskaga furaa mise waxaan asa stage gareeyo anigu waa fahmi waa ma fahanta laakiin asaga raba ina maxalla uu ololeeyo wax dhaho wax fiican dhaho marka video aan wada fiirsada insha Allah waxaan fiirinaynaa farst asagoo ka hadlayo waxa ay maanta kadibna waxaan fiirsanaynaa Xuseen Uji oo leentiisa way nagu soo qaadeen ciidanka dawladda madaxweyne Xasan Sheekh oo hormuud ka ahaa macallin Mahdi waxaan leeyahay wiilashaas Allah u naxariisto inta dhaawacana Ilaahay ha u boogadhayo maanta annagoo joogno hotel Jazeera ayaa waxaa nala soo xiriiray eheladii dadkii lagu dhibaateeyay deegaanka Siinay oo garabkayga labada dhinac ka taagan hadda qaarkood oo noogu yimid iyagoo ka damqaday dadkoodii la jirdilay la dhaawacay hooyooyinkii dhulka lagu jiiday ee aabihii 8 jirka ahaa oo kaamaradu qabatay oo na aaminsanahay inay jiraan kuwa fara badan oo la arkin oo aanay kaamaradu qaban inta idaacadda laga arkay way deegaanku ka soo dhiidhiyeen waa inta kaamaradu ay qabatay dadka deegaanka oo la barakicinayo oo la dhibaateynayo waxay noogu yimaadeen inaan dareenkooda ay cabirayaan la cabirno marwina dheereeyo hal daqiiqa fiirsanay 1 minute and 4 seconds fiirsanay ويناي is upset that means like asaga in la soo weeraramo oo asxaabe dhibaato loo geystay wiilkan weynaya mid kale wuxuu u doodayaa dadka dhulka laga qaadanayo oo maxallaha meel loo heenin oo guryaha laga jajabsanayo guryaha laga burinayo dhowr jeer hadda koorna waa ka hadlay marab ina political galo laakiin waxaan dhahay dadkan oo guryaha ku jiro miskiimiinta dhulka marka laga qaadayo in dhulka loo dhisay aheed oo la geeyo idinka la dhaho okay idinka guryahan aan idin dhisayaa guryahan waa u baahanahay la fahanti marka waa ka gudbeynaa waxaan u gudbeynaa Xuseen Uji oo ka hadlay arinta dhulka ku soo laaban doona mar wala inaan si fiican political u galo wadanka halis waa laga cabsadaa ama fahan Soomaalidu way baqaan qorbajooga daana inaan ka wada hadalno maxaa lahaay political iyo waxa Soomaali ka dhaco because you never know adaa wadanka ku laabto in la qabsada ka cabsanaa ma fahanti wadanka maxaa lahaay freedom of speech kama jiro maxaa lahaay freedom dhanka ma jiro ma qof kasta hashash waa laakiin ilaahay laga baqo wiilkan badan wuxuu u doodaa dhibaatooyinka dadka lagu hayo oo dhulka laga kicinayo dhulka habanayaan maxamed dawladda dhulka iyaga iska leh way u baahan karaan laguma haysto laakiin waxaan ilaa dadka miskiimiinta si hoos loola macaamiilo si maxallaha guri kale loo siiyo ama maxal apartment in loo dhisay ahayd niyaho oo dawladdan ay iska xilqaanto $1 milyan $2 milyan ay geliso ama dadka xataa lacag kaash la siiyo loo iska baxa $1,000 qaada ama lacag loo qaybiyo ahayd dadka dhulka raba xataa in dadka dhulka ma rabtiin ma gadanaysiin extra money diiba konton qoysday joogto 50 kun laga qaada laakiin $1,000 la siin lahaa waxa la dhulka in kama leeyihiin lacagta waan tijaabinay Xasan Sheekh waan tijaabinay Sheekh Shariif waan tijaabinay ninka maanta u baahan in la tijaabiyo wadanka loo dhiibo wallahi billahi tallahi wa Xasan Cali Khayre weeyaan isku qabiil mani oo isku qolo mani oo isku dadka shacabka ka dhaxarka ninkaas waxaan ogaa waagi nabad iyo nolol uu ku jiray waxyaabaha uu qabtay dadku waxay ku dhahayaan farmaajo wax qabtay xukuumadda ra'iisul wasaaraha ayay ahayd xukuumadda wax qaban jirtay farmaajo wax fiican buu qabtay khayr wax qaban jiray
dadku farmaajo moodi jireen farmaajo waa nin madaxa looga jiro dadkuna waxay sheegaan inuu sixriye walaashiba life soo gasho dhacday farmaajo walaalkii waa waalan ما أبغى فرماجي حقليهم ماذا هو حبه هي ما دمسترا دمستر كل سنة هي ما يسأل دمسترين قول بطوريا حسن علي خيره وقصلك فرماجة وأنت جوشية قبيلك حسن علي خير anyway that's too funny وإسكا هالليا عزوجي وحوكا بلارني فرماجة عادي وحوكا مقلدنو لكن والله بلا تلا هذا أروح ماذا حسن على خير وحياة لو سمعوا فرماجة مركم مدحبينها أها وتأويد وسوق بناك صوب مدارة سمينا لهاي وحسن على خير حبض له فورا مفاهمة دابيل وسهل أنت إلين سوق لنا مثل يوتيوب إن إجدي داني وكعب سنة واسكدينيها لكن محلها شكلها ku dhacday xasan al khayr waa wada ogeen farmaajo markuu madaxweynaha ahaa waa saga uu faayarayo marka hadana tana ku dhacday is there a reason why waxaan lagu sameeyay wiilkan tazaamindan maxlaay wadanka wuxuu qabanay doon ala wacala qofkas waa la baroway ama faanti sida wadan horta waa sida dumar oo kale dumarka nin markuu guursado ninkaana xumaani karo iska furay hadan ninkaana xumaa ficnaanaay تجاوبني مفهمتي مرك قف كستعلى تجاوبيا الله أعلم قف وقوف عنانا قف قوف معنا قف كمحلا وطن كدسا قف وطن كبربورنا نتكسلك عناية مفهمتي عادي لا أصلا سمية متكلم تنو والله مركز توحك فكرة عني وحد إلا ده كان ومقدسة كان دينا بطربان حاول إسكسارا مدحتو يدون هلو أوكي مدحتو ما ربتين أوفيس ما ربتين ما لا صار لقى ديكو أما جوهر لقى ديكو أما لفوله لقى ديكو أما محلها مركز حتى أنيسا صادي لها وحادي لها ودنك هلو راذي حل فانتي مروينا فيديو كدير هذا سحبتي ذا وإذن سلامة يا إذن كرأيينا سو أركتين يا تاغيرسا دورشدان دورشو وناكسا نقير قبطة ودنك لها أقوليو أنا ودنك من جوي لكن دورشا كلام عارف دورشا قلبو حساسيتي اللي ذهي يوم حلاها وحيدة وضطها ما فهمتي ما قدرت كتلقات مونجي عندي لها محلها يقف على قف ودنك وناكسنا حالة دورتو ما فهمتي ويلش دلانيردana waxaan dhihi lahaa sidii xasan khayr oo kale xamse cabdi baar oo kale hala indoors kaleeyo dadka businessyada la wiilal yar hanoo soo bixiyaan wiilasha yar dhallinyaradu way fahmayaan maxay waxna way qaban karaan fahantii wiilasha yar wadanka loo soo saaro wiilasha yar oo wanaagsan oo ilaahay ka baqayo diinta ka muuqato akhlaaq ka muuqato waxbarashada ka muuqato kuwaas u baahanay ma fahantii marka salaam ya asxaabta khayr ayda rajeynaya insha Allah video sida kulmeena hada videoyada ka heshay subscribe sar like sar khayr ku rajeynaya bye assalamu alaykum